dabcan aan kugu soo gudbino sheekooyinka arrimaha jacaylka. Kusoo dhawaada muuqaal cusub iyo sheeko dabcan ka badan sheekooyinka hore ee aad u xanuun badan. Sheekadan waxay ku dhacday dabcan gabar Soomaaliyeed ay ku socotaa. Gabar waxaa la dhahaa Aniso. Aniso waxay jeclaanaysaa mid ka mid ah dabcan wariyaal ka howlgala gobolka Mudug. Wariyahaasi ay jacaylka u qaaday dabcan shaacin mayno magaciisa, balse dabcan Anisa jacaylka ay u qaaday wuxuu ku soo bilowday marka hore. Wiilkan wuxuu daadin jiray barnaamij markaasi madadaalo ah oo arrimaha jacaylka iyo waxyaalahaas looga hadlo. Siduu daadin jiray dabcan waxay halkaasi ka heshay lambarkiisa. Wiilka codkiisa ayaa aad u soo jiitay. Waxay ka codsatay in ay markaasi ay isbartaan. Sidaas darteed wiilkani markaasi ay ka codsatay in ay isbartaan. Isbarasho kadib waxay soo bandhigtay in xiriir jacayl oo dabcan ay la sameyso. Dabadeedna halkaasi oo jacayl oo ka beermo markaasna ay noqdaan laba qof oo nolosha wadaagta. Dabcan ma ku diidi doona mise waa yeeri doona. Waa midda noo soo socoto oo dabcan dad badan ay isweydiinayaan. Ugu horreyntii uu soo dhaweeyay yarkani jacaylka ay markaasi ay u soo bandhigtay gabadhani lagu magacaabo Aniso. Soo dhaweyn iyo dabcan wada hadal iyo xiriirka muddo uu socday. Waxaa dhacday in ay uu yiraahdo wiilkii dabcan marka hore soo dhaweeyay jacaylka iyo dabcan walaalnimada iyo in nololaan doono waqti badan. Wuxuu jeclaystay inuu soo gabagabeeyo xiriirka jacayl ee ka dhexeeya isaga iyo gabadha Anisa lagu magacaabo. Waxay sidaas bay ahaataba isku dayo badan oo culays dabcan uu dareemayay in culays tahay in gabadhana uu shalay ka aqbalay jacaylka. Maanta yiraahdo walaal inagu kala kaxee jacayl inta ka badan islama sii socon karno. Waqti badan ay ku qaadato ugu dambeyntii maalin maalmaha ka mid ayuu wuxuu u soo bandhigay in dabcan soo dhaweyntii kadib ay waxyaalihii ama sheekooyinkii ay dabcan xasaawihii iyo wada hadalkii badnaa ay tahay waxba kuma jiraan. Halkaasna ay dabcan ay kala kulantay Aniso qalbi jab iyo murugo aad u fara badan. Kamaysan filan wiilkan shalay soo dhaweeyay in uu sidan ku sameyn doono oo jacaylka uu ku diri doono uu dhihi doono intaas dheer soo soconay walaalo inta ka badan kuma sii qaadan karo iga dheerow. Intuu cirka ii jiro ayaa ii jidha. Kuma doonayo inaan nolosha kula wadaago. Ma doonayo marka inaad waqti badan iska sii lumisid oo aad sugtid. Sidaas oo tahay dabcan aad ayay uga murugootay, aad uga xumaatay. In badan ayay ku celcelisay maxaa kugu dhacay aboowe ii sheeg waxa jira. Go'aankaas ayaan soo gaaray ayuu yiri walaalo inaan labadeenno aynu intaan ka badanaan isla sii socon ma nagu kala wadi karaa. Maxay tahay sababta aad iga tegisid? Nidaam suraa maxay tahay sababta aad iga tegisid? Dabcan waxaan nahay laba qof oo is jecel. Maxay tahay wax kula soo gudboonaaday ila wadaag walaalo. Ayadu jacayl dhab ayuu haysaa oo maahan mid dabcan ay indhal uga tegi karo ama indhal uga go'i karo. Sidaas oo ay tahay dabcan wiilkani muusan jeclaysan in uu halkaasi dabcan ay si wada noolaadaan ama ay jacaylkaasi uu si maro dhalo ubadkiisana ay arkaan.
waxa uu sheegay in intaan ka badan aanu muxuu ahaa aysan wada soco karin, uuna jeclaystay in halkaasi uu go'aansaday ay kala tagaan ama xiriirkooda intaas ku saleeyaan. muran iyo wada hadal ka bacdi way iska qaadatay. nafsiga ma gaboobo marbuu nafsigu ma gaboobo markuu ku gahadaaye kaalay garabkayga gacan isiiheen goortii aynu kulanay goobtaaska sheekadadhe sow ma garanaysid qosalka gabaxsiisay xiisihii galay ahaa weli mahu guurin goobtan imow heedhe hawsha ila giiji. waayahay sheekada intaasi kuba koobnaay. dabcan yar kale ayay dabcan oo markaas isna sida goobtii kala shaqeynayay ayay damacday inay jacayl usoo bandhigato maadaama isagu iyadoo laftigeeda daran ay jacayl u qaaday, balse isagu wuu ogaa xiriirka ka dhexeeya labadooda oo kor ayuu kala socday, laakiin dan iyo helaba kama lahayn. sidaas ahaataba Anisa waxay u sheegtay jacaylkii in badan ayaan ku jeclaa, balse waqtigii ma saamixin. waxaan jeclaystay inaan walaalo jacaylka aan kuusoo bandhigto haddaad iga didi lahayd iyo haddaad iga aqbali lahayd. dabcan jacaylka yarka markaasi ay usoo bandhiganaysa dambe wuxuu ogaa jacaylkii hore dabcan ay dhibaatooyinka ay kala soo kulantay. waa uu soo dhaweeyey si aysan qalbi jab iyo mara dilaac halkaasi aysan oga imaan. yarkan wuxuu saaxiib la ahaa gabar kale oo dabcan aad ay isku jeclaayeen, kuma is doorsan jirin hawlaha kale dabcan, balse waxa uu ahaa wiil aad u jecel gabadhaasi. dabcan uu soo dhaweeyey, balse wuxuu u sheegay inuu qof kale jecel yahay hadday ku qaadan lahayd iyo haddii kaleba. sidaas oo ahaataba ayadu waxay ahayd mid markaasi ku qanacsan nolosha, markaas in wiilkani ay la wadaagto jacayl ama uu ka aqbalo in diyaar u tahay 10,000 ama 5 kale ama 3 kale haddaad jecesha ama aad nolosha la wadaagtid. in muhiimadu ay tahay inaan nolosha kula wadaago aan kula qaybsado, dhabna adiga ku jeclaa walaalo isoo dhawey. sidaas oo ahaata uu soo dhaweeyey dabcan inkastoo asaga culays ay ku ahayd, balse waa soo dhaweeyey. sidaas ay tahay dabcan daawadayaasheena ku xiran channelka Dun Jacayl Hila Media, dabcan waxaa doonaynaa aad talooyinkiina aad nala wadaagtaan. gabadhan waxay naga codsatay maadaama ay kii labaad ay marayso ay jacayl usoo bandhigato, isna dabcan madmadow uga jiro jacaylkaasi inuu sii socon doono iyo in markaasi halkaas uu hakad ku noqon doono. bal la wadaag taladaada, talo nooca ayaad siin lahayd haddii adiga laftigaaga ay ku qabsan lahayd qisadan oo kale, ama haddii adiga laftigaada ay ku qabsan lahayd qisadan oo kale maxaad sameyn lahayd ama oo aad uga falcelin lahayd? nala wadaag qisooyinka adiga naftaada ka hadlaya. dabcan sidaan halkaan dhegeystayaasheena dabcan daawadayaasheena aan ula wadaagno. marka
aad baa mahadsantihiin daawashada muuqaalkani. fadlan haddaad ka heshay like commenti nooga soo bixi oo nala wadaag qisooyinka aad laftiga ku qabsaday. sidoo kalena subscribe saar gambaleel kala furo saa ula socotaa muuqaalka ugu horeeya channelka markaasi anagu aan soo gelino halkani waa hoyga dabcan sheekooyinka iyo jacaylka. aniga oo Maxamed Soomaali ayaan la socodsiinayay intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga. sidaas nabadgelyo.